سعادة وزير waxaa jirta ayaan boorar soo tarayo sheegaya in shabakadaha isku xiran oo dadka afduubanaya ay magaalada Hargeysa ku soo badanayaan gudaheeda oo dhowr kees ka dhaceen arrimaha maxay ka socotaan wasaaradda arrimaha gudaha wallahi naadir muxuu ahaa waa dumar laga soo qabtay burco waa ognahay halkan inan muxuu ahaa qolo yiri way afduubeen la soo qabtay waa ognahay baaris bay hawshaas ku jirtaa hase yeeshee hal qodob baa meesha yaalla waxa weeye dadka ehelka ah ee muxuu ahaa ehelkoogii ah ama waalidkoogii ah ee dadkaasi dadkaan naxariista lahayn ay sida qaldan u adeegsanayaan la sheegayo horta cid toos ula soo xidhiidhay hay'adihii nabadgelyada oo tidhi ciddaas iga maqan ama ciddaas wax lagu sameeyo way yartahay hadday jirtana imka ogsoontiinoo dalkeenna guud ahaanba tanaa la sameeyey qofkanaa la afduubay qofkanaa wax la saaray qofkanaa muxuu ahaa la salaamay oo lacag laga qaatay wax badan baa dee lagu odhanayaa mararka qaarkood anu waxaan is idhahdaa malaha waa dadku ha digtoonaado oo dee waa tii carruurta lagu seexin jiray muxuu ahaa bafarun iyo geedalaac iyo cawsiyo beeknool iyo beri waxaa la odhan jiray waraabaa halka ku cunay ninbaa muxuu ahaaye jones baa halkii juudaan qabaa hargeysaha xaafaddaad muxuu ahaa siinaay dusheeda wax ku cunay wax la soo taabtay oo aynu aragnay oo uu leeyahay qofkii dhalay aniga weeyaanna way yar tahay way yar tahay mar dhaweyd t v waraystay oo t v-ga saab la yidhaahdo oo su-aasha ay weydiiyey waxaan ku idhi laascaanood agteeda meelaha adugu u dhaxaysa muxuu ahaa laascaanood iyo aagga bahashii kala baydh inta u dhaxaysa meelahaasaa mar la yidhi inan baa yar baa cunay muxuu ahaa nin dad cuni dad ama dhiigga carruurta ka jaqaa waxaa lanagu yidhi waa la soo qaaday kow laascaanood baanu weydiinay lama marin oo lama riboort garayn waa la soo qaaday haye burcaanu weydiinay lama soo marin bay yidhaahdeen ilaa hargeysaa la keenay baa la yidhi oo dhakhtarkanay taalla anaa shaksiyan tegayoo ma arag mushkiladda taagan waxa weeyaan dadkeennu shay baa soo baxaya waa laga yaabaa inay muxuu ahaa qodob ama laba ay yihiin ay wax dhacaan dabeedna waxaa laga dhigayaa boqol baa laga dhigayaa waxaan leeyahay horta bal carruurta haynaga didinina oo aad hawsasiyaanay qaadin hase yeeshee hawshaa wax waa ka jiraan waxaana baaristeedii iyo sababahaygaanu baadhaynaa waxaan sixirka la yidhaayo kolkol baa dee dadka ninba siba u arkaaye waa nebigu wuu sheegay laakiin bahalka hana rumaysan ha aaminin ha rumaysaninaa layidhi yaa oo isaga iyo falalowga iyo waxaan wax la sheegay weeyaan haddana dee aynu sideeda u qaadanno oo aynu isku baqan gelinna maaha bisinkaasaa wax walba kaaga filan waxaan aqoonsanahay hablo lagu leeyahay burcaanu ka soo qabannay inantu cod bay raacdeen tahriibtay doonaysay oo dabeedna waxaanay ku marmarsootay ma rasmi bay ka tahay we don't know inaynu hubsanno oynu runta ka gaadhnaa loo baahan yahay oo inaan dadkeenna bahalogelin keliyaa lagala baxaabaa la leeyahay dad iibinaya ubadkoogaa jira oon dalkeennan ahayn dalalka afrika ee aad garanaysaane dalal badanoo aan inala caqiida ahayn oon waxbaba la ahayn ilmihiisa inuu gado ayaa badan ilmaada rayaal waxa weeye baylahada taalla meelo kale halkeenna way ku yar tahay ninka doonaya inuu keliya la baxo si dhib yar buu helaya ka fuduteenna ninka doonaya inuu sixrada ama kaxaystaba ama qaataba meelo badanoo carruurtu gidaarkaba iska jiiftaa jira oo dalal badanoo aan damba laga lahayn ubadkii anu waxaan odhan lahaa wixii jirana tallaabaan ku qaadanaayoo ka hadhi mayno waananu soo taabanaynaa gunta haddii la yidhaahdo dadkana khalkhalyaynaan gelin marka dadkeenna khalkhal baynu gelinay sida muuqata tension baa la wada galay aniga gurigeyga carruurtaydu riddaa kama baxdo iyadoo la kaxeeyo mooyaane way wanaagsan tahay inaynu ka digtoonaanaynu sheegno wixii xunee dhacayo inu ubadka u sheegno si aanay muxuuha ugu qaldamin laakiin qaabkaynu imka halkan loo dhigay
waxa weeyaan qofkii soo agmaraba qofkii inuu ka cararo waxaan leeyahay waxaa ha la iska ilaaliyo ha la soo sheego ciddii ay cidi ka maqan tahay ciddii cid wax laga yeelay ha yimaadaan muxuu ahaa rugaha booliiska meelaha muxuu ahaa warka la geeyo ha keenaan annana waxaa waajib nagu ah inaanu baadhna arrintaa iyada ayaa waajib nagu ilmaadareeya dhinaca kale waxaa jira xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada somalilan oo hay'adaha amniga ku eedeeyey inay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan falalkaas maxaa taa ka dee qof uu iska accuse garayn doonaa ciduu doono canaantu ma xumo oo qofku hadduu canaantu yidhaahdo muxuu ahaaye war hawlo badan baa kuu yaalla waa waajib waa la isfuraa laakiin la ii sheegay inay nimankaasi ku hadleen nimankaasi golaha waxay kaga hadli jireen waad ogti naftoodana uma roono dal iyo dadtoonna uma roono ragga aan garanaya ee weeraha laga soo xiganaya waayo iyagaaba marada isu tuuri jiray oo isbaqa gelin jiray oo odhan jiray halkanaa layga soo toogtay iyo halkanaa wax layga sameeyey waxaan u arkaa uun niman aanu iska dhahun hadalkoogu yahay waxba ku talax tegi maayo saaxiibaday xilka ilaahayna wuu hayaa dee madaxweynahana qalinkiisay ku jirtaayoo dadkiisa wuu kala yaqaanaa odhan mayno annagu hebel baa waxaa yidhi iyo waxaanuu yidhi midna odhan mayno hase yeeshee nimankaasi waa niman xujo inay noo sheegaan oo yidhaahdaan war waxaasaa jira dalkii laga qabto waa xildhibaan oo xil baa saaran weli nin intuu soo taagay xildhibaanada inanka ila socdaa guurtidaa mooyaane raggaa waaweyneed arkaysa golaha wakiilada na yidhi war waxaasaa dhaliilay jirtay wax ka qabta maanaan arag ha noo yimaadaan oo ha noo keenaan oo buruufka hayaan iyo daliilka hayaan ha noo keenaan haddaan wax ka qabo weyna hadalna eedeeyo aad baad mahadsantihi waxaa jirta maalintii hore inantii hadashay waxaa jiray rugaha booliska qoyskeedu waxay yidhaahdeen rugaha booliska markaanu la xidhiidhnayn nidhi waa dhibaatadaasaa jirtee soo baara way naga cagajiyey markaa idinku ka mas-uuliin ahaan amni ahaan rugaha booliska ma wacyi geliseen oo dee inay dadka u dheganuglaadaan marka cabasho ay la yimaadaan dadka shicibka ma ku wacyi gelisaan rugaha taliyayaasha rugaha booliska dee inar way wacyigelishan yihiin oo dareyska waxay u xidheenba waxa weeyaan waa xil baa la saaray waxay dareyska u xidhan yihiin ee aroortii u soo kala lahayaan ee habeenkii u soo jeedaan waxa weeyaan xil baa saaran ilama ahaa ciidanka booliiska ama ciidanka qalabka sida midna ku canaanan mayno hawl taasoo kale ah oo loo sheegay inay ka muxuu cagajidaan ilama aha hase yeeshee hadday meelaha qaar dhacdo waxaanu leenahay oonu furaynaa booliiska taliyihiisa iyo guud ahaanba ciddii ay nabadgelyada khusaysaa aan soo wada jeedno aan u dhegan nuglaadno dadkeenna haddii ay dhacdo meelaha qaar anugu aan aqoonsanahay habeenkii waa ogtihiinoo haddaad suuqaa martaan ciidankeenu waa taagaya meel walba maalintiina taraafika iyo sida heeganu yihiin waad aragteen ma dhaliili karo waxaynu ugu roonnahay dal yaroo soo korayo oo weli aan adduunka geesna ka raacin baynu ugu wanaagsannahay adduunka wax ka dhacaya dalalka la caawinayo intay burbureen dowladoo dham iskugu tegeen waad arkaysaa dee waxaynu dhisannay yaa wax noo dhisay ma inagaa dhisannay mise adduun baynu waxaan hagardaamahayn miyaa laynoola iman jiray maalintaynu dalka dhisanayneen yaa dowladnimada dhisanayn ilaa ciidanku kala tegey waa la kala yaacay leene waxa weeyaan ciidanku dhaliil ma leh haddiise arrimaha qaar yimaadaan waxaan leeyahay aan foojignaano u dheganuglaala dadkeenna isku dayno tallaabo kastoo iyo war kastoo aynu hello inaynu u qaadano inuu ru yahay kolkaasaynu helaynaa warka rasmigaa aad baad mahadsantihi